السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي آد بان إدين سلاميا soo dhawaadaan idin leeyahay kale waxaan u maleynayaa qoraalka iyo guud baad arkaysaan oo qaar badan oo idinkeedii ka mid maanta wada yaabantihiin maxaa gabadhii ku dhacay maxay tahay qoraalka noocan ay soo qortay wax badan baad isweydiinaysaa laakiin qoraalka halkaa ku qoran yani kale sidoo indiina u dhibi doono ayo aniga qalbigayga iyo maskaxdayda iyo damiirkaygaba u dhibay runtii marka dhacdo cajiib badan oo أنا ولي كفيلانين إن كلا كل مدانة إن مجالدي أنكو دشي أنكو كوري أنكو برباري وأدو فالحن أي رنتي لكل ما مركا وأسكت يا بالنا إذا لا الله سيدي حجرنا ندين شيء إنك استوى حسك حنون كل الأوقات درن أي تهاي لكن هذا أنا كما فرصة زينا إذا لا وذاقه marka aad iyo aad baan horta idin salaamaya qiso iska qariban oo qaab daran oo qabiilaysan oo ma aragtay aan ka filanaynin magaalo mudada inta la eeg da'da aan maanta jiro ina yani waxa noocaas wadankii aan ku koray aan ku dhashay aan ku barbaaray yani aan xataa habeen aan ku seexanin aan kala kulmi karo ayaan kala kulmay oo runtii qabjab iyo damiir xumo iyo ma aragtay سبحان الله يعني وح أنا وكل يبقى أنا المانتك يعني أنا سوكو بكريم بان كلا كل ماي سومالان and سبحان الله إذا لو ذاقيا وبيجو أذكت حتى أنا هالله بيجو أذك أو أنا يعني وحي يجو بي عن مارتي عن شيكتو أي حتى وح مارتي and أذك and inaad soo yara badataan baan rajeynaya muuqaalkaygana waxaan rajeynayaa cid walba oo uu quseeyo oo ma aragtay dawlad haday noqoto shicib haday noqotaba arintan cid walba ay quseyso ayaan maanta fariin halkan uga dirayaa wax Soomaalinimada ka baxsan dhaqamada adduunka ka jira sharciyada adduunka ka jira ma aragtay ka baxsan yani qaab daran oo ma aragtay meel aan u qaado aanan xataa garanayn baan kala kulmay runtii oo igu adagtay xataa inaan hayr gareeyo ama aan qariyo ama aan qarsado ama la aamuso wax dhacday warqada ayaan uga baahday magaaladan anigu waan ku dhashay Hargeysa muddo 27 sano abaan ma aragtay dhalashadayda laga joogaa hadda ilaa habeenka ku dhashay ilaa habeenka maanta ahna inaan ma aragtay meel aan deganaansho kale oo aan qaatay ama wadan kale deganaanshihiisa qaatay oo aan ku noolahay meena jirin 27 sano da'adaad 27 jirka waxaan ku soo gaaray magaalada Hargeysa xaafadii aan ku dhashay ee aan ku koray baan wali deganahay dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare iyo heer secondary iyo heer jaamacadeed Hargeysa ku gaaray dhan walba waxaan ahay mar waxaan ahay hooyo mar waxaan ahay inan dhan walba waxaan ka soo jeedaa Hargeysa marka laga tago qabiilka aan anigu ahay anu qabiil ahaan يعني عيل درتي من حتى هاد لي كرلاي أنا قبيل أهان هرجيسة قبائل لذا دقة كمان مديه لكن تقبيل وحكة وين بانجا هرجيسة يلا ودلا شيء طالع أدون كستي سنة كصد حسنا شن سنة على قاطها أنا جو 20 زمن years أو age كي جاب من هرجيسة قاطها وحيابا يقول يا بكبضان له حنون كبضان له إمانة أنا هرجيسة كلا كل ما دوني إن إذا لو ذا قعد والبع عقل اللي أنا مانت أنا قاعدين كرين وحويان وحنوبا هذا فرا بوليس أيان ميل حولي حدنيد بوحة ليقولي فرها النبتقلية وطن كأت كنا شاهي بروسيس أنا قوتي أو ضاف بوحة ليقولي فرا النبتقلية وحلاقة بهاي مقالة عاد كودالتاد كبر بارتي وحدة بينات كجلين فرا بوليس بالغ ربعة بعدين فري بوليس كسي أي دي ذا سومال لامبا قاطع هل كان كبحاي سي أي دي بانتجي لعق بالصوت بحياة مالية دلوق صوت بحياة لعقتي بنصوت بحياة رسيل كي أنا كسر بحياة لعقتان صوت قاطي waxaan la imid xafiiskii CID-da CID markaan la imid waxay igu dhahdeen warqadan aad sidato waxa loo baahan yahay CID-du fara ma qaadno ilaa ay qofku uu sito kaar dhalasho oo Soomaaliland kaarkaaga dhalashada markaad soo qaadatid ayaanu faraha CID-da ku marinaynaa halkan ka doontaa baan idho waxa la igu yiri waxa tagtaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxay igu tiri anaga ma bixina ID kaadhada lumay ee dib loo cusboonaysiinay ayuma anaga bixinaa laakiin kuwa cusub dawladda hoose laga doontaa dawladda hoosana waxa lagaaga baahan yahay caaqilka reerkiina lagaaga baahan yahay oo qabiilka aad tahay caaqilkiisa ayaa lagaaga baahan yahay
aniga markaa warqadahan farahaygan booliska boqolkiiba boqol ii muhiimsanaa dariiq walba oo farahaygan booliska aan ku heli karayo ayaan doonayay falowgeeda inaan maro. waxaan tagay dowladii hoose ayaa laygu yiri caaqil baa lagaaga baahan yahay. caaqilkii baan raadiyey. aniga caaqil dee maadaama qabiilkayga aan meesha deganayn, qabiilkayga caaqil aniga halkan uma joogo. laakiin mid reer abti hadday tahay oo la raadiyo iyo haddii ay tahay maxay ahayd mid caruur aniga aan dhalay, caruurtayda oo u dhashay Somaliland, qabiil ahaan Somaliland kasoo jeeda, anigii aan ku dhashay, caruurtayda ay ku dhashay, yani systemkaygii oo dhan halkaa uu yahay. waxaan raadiyey caaqilkii caruurtayda ay ahaayeen. waxaan u sheegay inaan warqad dambi la-aan faro boolis aan u baahanahay. farihii booliska kaadh dhalasho laygu xidhay. kaadhkii dhalashadana la igu yidhi waxaa lagaaga baahan yahay caaqil reerkiina ah. adeer anigana caaqil halkan iima joogo. aniga deegaan ahaan dee waan ku dhashay, waan ku barbaaray Hargeysa, laakiin aniga qabiilka aan Soomaali ahaan kasoo jeedo Hargeysa caaqil uma joogaan. maadaama caruurtayda caaqilkoogii tahay, kaadhkaa damaanad caruurtayda inaad iigu soo qaado, ama mid dhaxdina iigu soo qaad, ama mid idinkuba dhalashadiina aad iga dhigaysaan iigu soo qaado. kaadhkaas ii muhiim si aan faraha booliska u maro. wuxuu igu yidhi adeer maxay ahayday caruurtaadana waxba kuuguma qaadi karo, oo caruurtaada dhalashadooda waad ka madax banaan tahay. adiga dhalashadaada iyo qabiilkaaguna maadaama aanay Hargeysa ahayn oo gabadh maaragtay deegaan kale kasoo jeedo, qabiil kale kasoo jeeda aad tahay, kuma damaanad qaadi karayo. dhaxdina kuguma damaanad qaadi karo, dhalashana kuguma carshan kuma damaanad qaadi karaye system kale oo aad wax ku fushan karto soo raadsa buu igu yidhi. waa sax baan idhi. dowladii hoosaan tagay. dowladii hoose markaan tagay waxaan ku yidhi anigu gabadh Hargeysa ku dhalatay baan ahay, gabadh Hargeysa ku barbaartay baan ahay, gabadh Hargeysa wax ku baratay baan ahay. Hargeysa anu meel laba ugama bixin, deganaansho wadan kale ama haysto. dee qof 60 sano Somaliland rabaan, waxaan u baahanahay kaadhka dhalashada Somaliland baan u baahanahay. faro boolis baa iga xidhan, process baa iga dhacaya waqtigiisii oo safaaradda la iga rabaa si degdeg ah farahayga inaan usoo xareeyo. kaadhkaas baan u baahanahay. waxa la igu yidhi qoladii dowladda hoose kadinka horta markaan sidaa uga istaagay waxay igu yidhahdeen qola ma tahay. waa dowladda hoose kadinka ugu horeeya ee laga galayo wiilka fadhiya ugu soo horeeya. kaadhka dhalashada Somaliland qabaa'il baa lagu bixiyaa, qola ma tahay buu igu yidhi. aniga markaa maadaama qoladii kasoo quustay caruurtaydu ay ahayd oo igu yidhahdeen damaanad kuma qaadi karno, kaadhkaa kuma qaadi karno. subxaan allah, yacni xataa ma hadli karayo. xataa inaan hadlaa igu adag, yani waxaa qaabdarida meesha igaga dhacday. markaa meeshii dowladda waxay igu yidhahdeen qabiil baan u baahanahay. يعني waxaan ka ooyaya qaabfo, yani foolxumada meesha taalan ka ooyaya, yani wax foolxum weeyaan. marka waxaan ku yidhi anu kaadhkaas aan u baahanahay, process baa iga dhacaya, waxaan u baahanahay far nabadgelyo. farii nabadgelyada kaadhkan dhalashada iga soo galeen. anu meel kale oon dee idiin tixraaca ma garanayo. shahaadooyinkaygii dugsi sare ilaa heer jaamacadeed baa halkan yaala. wadankii aan ku dhashay, aan ku karan, ku barbaari, hooyaday ku dhalatay, anu ku dhashay, ubadkayga aan ku dhalay weeyaan. kaadhkaas aan u baahanahay. waxay igu yidhaahdeen kuma siinayna kaadhkaas, qabiilka aad tahay ee saxda ah noo sheeg. dhalasho iyo inan meesha ku dhalatay iyo mid reabtilooyay mid ku kortay midna ma khusayso. adiga dhalashadaada kuma qaadan kartid, deegaan nooma tihid halkan. waa sax baan ku yidhi. waan iskaga soo baxay. waxay igu qaadatay 3 cisho intaa kol CID da la diro, kol dowladda hoose la diro, kol wasaaradda arrimaha gudaha la diro. waxaan u baxay haddana CID baan ku laabtay. waxaan ku yidhi maanta CID da tagay ugu dambeyn, last decision-kii ugu dambeeyay. waxaan ku yidhi CID markaan tagay anu gabadh dii aad dirteen baad igu tirahdeen dowladda hoose kasoo dhamow. dowladdii hoosena waxay igu yidhahdeen Somaliland ma tihid, ama ku dhalo, ama ku kor, ama ku dhal, ama ku dhaqan. qof qabiil ah baa la doonaya. haddii aanad qabiil ahayn waxba kuma siinayna, cad bay igu yidhahdeen. halkaas ay soo mariyeen. waxaad ii sheegtaan waxa xal ah maanta anoo aan ku heli karo faraha booliska. anigu maadaama ii diideen inaan 60 sano noqdo, anoo ku dhasho ku kor intaa ku la ekaaday.
raaliha hada ma jeclayn inaan hortiina ku ooyo laakiin xataa cunsurinimo ma dhigi karo xaq waxaan u leeyahay حقوق بان ليهاي قفك بني آدنكا 3 سنة ودن لغو نولaa ama 5 سنة ودن لغو noolaaba sharcigiisa la helaa qof ku dhashay oo 60 ah oo ku dhalay oo ku dhaqmay oo ku dhashay warkeeda badaa marka meeshii markaan tagay waxaan ku yiri waxaad ii sheegtaan maadaama ii diideen inaan Somalilander ahay maadaama kaarkii dhalashada ii diideen maadaama caaqiladii damiinan la igu yiraahdeen maadaama qabiilkaasi kuma damiinanayno maadaama dhalasho iyo dhaxdin iyo dhanba aad ii xirin weydeen system aan maro oo waxaygan ku fudaydsado oo farahaygan boolisku aan idin ka maro bal ii sheega baan ku yiri anu already dhalashadiinana iska bahaysta mar hadii aan anu isaaq noqon waayo isaaqnimo aad igu siin weydeen iska bahaysto system aniga aan maro ii sheega meeshii CID markaan tagay dadkii shaqaalaha hore ahaa ee maaragtay xagga xafiiska hore fadhiisay gobanimo la ii soo dhaweeyeen waan ka xunay bay igu dhaadeen maaragtay inaad saas oo dhan aad u dhibaatootaan ma jeclin arrintaadana waan ku dhameeynaa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sarkaalka ugu weyn ee meesha ugu sareeya ayaa lagu gelinay isagu wixii maaragtay uu ka yeelo ayaan markaa eegaynaa ma waa idin soo shaqalaaf waxay ugu dhaadeen hadii aad noqon weyday dhalasho ahaan ay kugu siin waayeen qoladan dawladda hoose deganaansho qaada bay ugu dhaadeen deganaansho muxuu yahay baan ku yiri waxay ugu dhaadeen kaar deganaansho waa inaad qaadato kaarka deganaansho faraha booliska kugu sameeynaa ee CID-da oo waxaan ku yiri sideen deganaansho qaata xageen ka soo guuray xageen intaan ka soo guuray Hargeysa aan ka imid deganaanshaha systemka aan ku qaaday sababta aan deganaanshaha u qaaday deganaanshaha qof wadan kale ka soo guuray baa wadan deganaansho ka qaata oo sharciga wadan kale qof sitaa wadankan maaragtay deganaansho ka qaata anu waa ma ku dhashay waa ma ku kor intaan ku leekaade maxay tahay deganaanshaha aan soo qaadanaya ee aan la tagay xafiiska xagee ka keenaya anu waa ma ku dhashay ilaa aysan deganaansho qaadan karaa qof ku dhashay sidoo cashuur u bixin karaa deganaansho qaadan karaa hanti baan ku leenahay waan ku dhaqanahay waan deganahay maxay wax walba waan ku wadanaa intaasoo sanana waan ku soo dhaqnayna waan ku soo kornaa waan ku soo barbaarnay sideen u qaadan karaa deganaansho wadankii aan ku dhasheen ku koray sideen deganaansho u qaadan karaa way gudbiyeen marka ninkii CID-da markaa ugu sareeyay ma garanayo magaciisa ay ii gudbiyeen systemkaygii buu ninkii waday baa u sheegay wuxuu ku yiri inantan waxay tiri wadanka waan ku dhashay waxay tiri waan ku koray waxay tiri waxbaan ku bartay waxay tiri waan ku dhalay oo caruurtaydu maaragtay deegaan ahaan xataa hadii la eego halkan ka soo jeedaan warqad CID bay u baahatay warqadii CID-da ka dhalasho lagu xidhay kaarkii dhalashadana ilaa caaqiladii way u suurta gelin waayeen oo waxay dhahdeen kuma damiinaan karna maadaama qabiil nala ahayn wadanka qabiil deegaanada ahayn inantan sidaynu system ugu fududeyn karnaa ninkii ugu weynaa meesha ii geliyeen wuxuu warbuuxa ku yiri deganaanshaha qaadata gabadhu waxaan ku yiri deganaanshaha maxaa u taqaanaan anu wadan kale kama soo guurin magaaladii aan ku dhashaan jooga systemkan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay systemkan fara boolis baaban u baahanaan idin leeyahay wadankiina waan deganahay maxay tahay deganaanshaha aan raadinaya ee aan meel kale u raadsanaya hadii aan deganaansho dad qaata fara booliska waan ku marinaynaa ka dhalasho hadaad sidatana fara booliska waan ku marinaynaa de dhalashadii waad ii diideen oo Somalilander ma tiid baad igu tiraadeen intaasoo sano aan ku noolaa ku dhaqmay ku dhashay inta ku leekada ii diideen dhalashadiini qabiil ahaan baan igu diideen qabiil meeshan degan ma tiid baad igu tiraadeen reerka halkan degan ma tiid kuma siinayna warcad asoo maaha system kale oo aad ugu tala gasheen dadka aniga ila midka ah ee maartay qabiilkan dadkan aan u dhalan la midka ii sheega on maro waa deganaansho wadankii waan deganahay hanti baan ku leeyahay waan ku dhaqanay waan ku koraan idin leeyahay systemka aan deganaanshaha ku qaadanaya muxuu yahay hadaba caruurtaada de systemka caruurtaada soo mar oo anan yaana wadanka u dhalan oonan xaq u lahayn maxaa caruurba keenay anigii baaba maya systemka caruurtaada soo systemkii caruurtaydu uu idiiday oo caaqilkii caruurtaydu ay lahaayeen wuxuu igu yiri kuma damiinan kara kaarka dhalashadana kuma soo qaadi karo cad buu igu yiri anu kaarkii dhalashada hadda mubarabe warqadayda faraha booliska nabadgelyada inaan wadankiina wax dambiye ka gelin aan safaaradayda kaga xareysta hawshayda oo kaliya tan anu hadda idin ka baahanahay iska badaaya systemkan kale hadalkii waxay igu soo gunaanadeen kuma siinayno maadaama ninkii CID-da ugu sareeyay wuxuu igu yiri miyaa kala tagteen inanka isaaqa ah ee caruurtaada dhalay maad kala tagteen haa waan kala tagnay oo arman caruurta nagala baxsanaysa sideen fara boolis ku siinaa yacni wax caqli bini'aadanimo caqli insaanimo caqli soomaalinimo caqli dhannaba dad aan xirin baan horta la kulmay marka anigu maanta fariiman halkan u marinaya Somaliland fariintan u marinaya waxay tahay dee dadku wada qabiil ma noqonayaan ilaahayna wada qabiil kama dhigino ilaahay ba qabaa'il inaga dhigay
intii maaragtay isuran ee meel wada degta ayuunbaana maaragtay aanu aqaanaa dad isku deegaana inay yihiin. deegaankan anigu kasoo jeedo kuma dhalan, kuma korin, ma kala aqaan. meesha ugu fogeen arkay hadday ugu badato waa caasimadeeda, meel kale ma arkin. wadanka aan ku dhashay ee hooyaday ku dhalatay ee anigu aan ku dhashay ee carruurtaydu ku dhalatay ee aan wax ku bartay ee intaa kusoo la ekaaday maanta danta iga soo gashay in la igu yidhaahdo haddii aanad caaqil noo wadin oday ah oo reerkiina ah oo wadanka dega waxba naguma lihid, xaq iyo xuquuq naguma lihid. wadanka adduunyada ilaahay meelay ka dhacdayna ma jirto, meelay ka jirtaana ma jirto. ummaddu xaq bay leeyihin, xuquuq bay leeyihiin. kuwii qaxoontiga ahaa ee qaxoontiyada ka baxay Mareykan iyo Kanada joogay baa 60 sano ah oo maxay ahayd baasaboorka Mareykanka sita oo la xaq ah oo la xuquuqa kuwii cadaanka ah wadanka u dhashay. anigoo wadanka ku dhashay xuquuqda aad ii diideen yaad siinaysaan. anigoo carruurtayda halkan ka dhalatay xuquuqda iyo xaqa aad u diideen yaad siinaysaan. anigu waxaan garan la'ahay dee idinkan inaad adduun weynihii ictiraaf ka raadinaysaan ood leenihiin 30 sano ictiraaf raadinayna dadkii idinla dhashay idinku dhex koray idinla maaragtay dee ilaahay idinku dhex beeraad wada korteen dee isku maarad systemka haydeen inaad leedihiin ma ictiraafsanino dad jira ma aha. idinkiina inaad adduunkii u cabanaysaan horta laba isqabanaya ma aha. wadanka deganaansho u qaadana deganaanshaha system baa adduunka lagu bixiyaa. qofku waa inuu sharci wadan kale sitaa, waa inuu wadan kale ku nool yahay, waa inuu wadanka kale markuu ka yimaado wadankan imanaya deganaansho la siiyaa isagoo loo tixgelinayo wadankii uu ka yimi. wadan kale aanu kama iman, magaaladii aan ku dhashay sideen deganaansho ugu qaadan karaa? sababta yacni fadlan ay soo wicina sababta aan deganaansho Hargeysa ugu qaadanaya waa sabab maxaya? aniga danba iga soo gashay, danta iga soo gashayna waa faro booliis inaan wadankan wax dambiye ka gelin. waxa kaliya ii sameyn kartaan waa inaad farahayga booliiska isiisaan. systemkii aad imariseen hadduu system qabiil noqday, qabiilkii aan noqon waayeyna system kale oo dadka aniga ila midka ah inaad u martaan bay ahayd. anuu iskuma aqoonin qof wadan kale yacni waxaad igeliseen wax aan weligay xataa iga biidoonin. yaa wax maaragtay foolxumo ah oo aad fara badan baa meesha taala. marka hadiiba ay dhacdayba inaad leedihiin anagu kaliya ta waxaan wax siinaynaa qofka deegaan ahaan maanta isaaqa ah ee meesha degan kaliya wax siinaynaa iyo inta deegaanka ee soo raacda ee wadanka deegaan ku ah dad aan wadanka qabaa'il ahaan deegaan ahaan qabaa'il ahaan ahayn baa jira oo dhalasho sidaydana ku dhashay ku koray ku barbaaray cimrigoodna soo joogay aan wadan kale iyo adduun kale uba kicinba. anaga dadka nala midka ah maxaa laga yeelay markaa? ma qabiil kaasaa tahay ayaa xaqii aanu lahayn lagu duudsiiyaa? yacni qabiil baa tahay, cashuur baana laga qaadaa, hanti baan wadanka ku leenahay, waan degannahay, waan ku kornay, waan ku dhalanay. wadan kale Soomaaliyeedba kumaana korna manaanan arag. maxay tahay marka cuqdada intaa la eg ee maanta anigu xaqaygii aan kaga waayay inaan system dawladeed weligay ma hor istaagin system dawladeed maanta wax iga galeen maantana yacni niyad jab iyo cuqdadii abid ugu xumeyd baan ka soo qaaday. yaa waan ka xumahay anigu maanta waxa kaliya ta ee aan raadinaya waxa weeyaan faraha aan anigu u baahanahay, faraha aan anigu u baahanahay ee dambi la'aanta ah. ma aha inaan kaarkii dhalashada aan u rabo. kaarkan dhalashada hadduu qabiil iga galay waan ka samray, laakiin wadanka aan joogo system aan ugu noolaaday adduunka system baa adduunka lagaga noolaaday. qofka bini'aadanka system uu ku noolaadaa jirta. imaayo inuu qaxoonti ahaado, imaayo inuu sharciga wadanka haysto, iyo imaayo inuu maxay ahayday kaarka deganaanshaha wadanka uu haysto. anu qaxoonti ma noqonayo wadankii waan ku dhashay waan ku koray. kaar deganaashana ma qaadanayo wadan kale oo kasoo guuray ma jirto. aqoonsigaan xaqa u lahaayee sharciga ahaa haddii aad iga duudsideen systemkiina dawladnimo intaan ku hoos noolahay sideen u fushanayaa markaa? yacni sida aan u fushanaya systemkiina dawladnimo ee aan haddaan xafiis wax uga baahday, haddaan meel wax uga baahday, systemkiinii dawladnimo haddaad ku xidheen card maaragtay qabiil aad ku xidheen, anigana qabiilkii ilaahayba igama dhigin, mana noqonayo, khasabna kuma noqonayo. yacni xaggeen maraya? bal systemkanaan u baahanay anuu dariiqii aan mari lahaan xaqayga ku heli lahaa ayaan maanta reer Somaliland uga fadhiyaa. dad ba waxay oranayaan Somaliland sharcigeeda u ooysa, Somaliland sharcigeeda rabtaa. maya, waxaan diidayaa dulmigan diidayaa. qofka bini'aadanka dulmigu shay xun weeyaan. sida qofka bini'aadanka ay nafahooda ugu diidayeen dulmiga, in dulmi la qaato wax wanaagsan maaha. sharciga aad idinku dejisateen hadduu sharciga noocaas yahay oo aan idin tixgelino inaad qabiil wax ku bixisaan,
dadka idinla dhashay ee idinla nool ama aad dhashaan ama idinku dhex koraan ee wadankiini jooga system noocyada ugu tala gasheen ilaa qof wadankii ku dhashay oo abidkii soo deganaayo cashuur bixinaya weligii deganaa ku dhashay ma qaadanayo kaar deganaansho system aan ku qaato kaar deganaansho nafsadayda bil walba cashuur uga bixiyaana meesha ma taalo oo $30 bil walba laygu dhahdaa waa degantahay wadankii cashuurkeen anoo hantidaydii waxaygii noloshaydii oo dhan taalo marka waan ka xumahay waxaanan filanaynin oo fool xun oo maaragtay soomaalinimada ka baxsan islaamnimada ka baxsan dhaqan islaamiya dhaqan international oo gaal isticmaalo xataa midnaba kuma jirto dhaqanka gaalkana sharciga system baa lagu qaataa deganaanshaha system baa lagu qaataa qaxoontinimada system baa lagu galaa intaa midnaba anu maanta kuma joogo marka weligay xarun dawladeed ma istaagin weligay saldhig dawladeed ma istaagin weligay dalka waxaan inaan wax soo geliyo mooyo weligay wax dhibaato uma geysan in maanta xaqaygii markaa lagu duudsiyo oo laygu yidhaahdo qabiil haddaanad keensanayn oo aanad qabiilkaa keensanaynin waxba kama tihid halkan maaragtay wax aad u fool xun weeyaan wallaahi waa wax aad u fool xun wax aad u fool xun dawladda hoose kadinkeedii markaan ka gala waxaa lagu leeyahay qolamaa tahay yaa tahay qolamaa tahay CID markaan tagaa lagu leeyahay yaa tahay qolamaa tahay yacni adduunka system dawladeed baa ka shaqaysa qola kama shaqaysa systemka dawladeed baana loo hoggaansamaa hadda anu farahayga dambi la-aanta ah waxaan ka doonayaa dhammaan madaxda arrintan ay khusayso systemkii aan u mari lahaa farahan dambi la-aantan waddanka uga baahanahay si anaaba waddanka xaq iyo xuquuq ku leh cashuurtaad iga qaadiseen iyo xaqaad iga qaadiseen xuquuqdaad iga qaadayseen iyo taaka walboo la qaado cashuurta aad igaga qaadaan xaqeedii baan u baahanahay anigaygii maanta maaragtay haddaan anigaygii ajnabi noqday oo aad leediin ajnabi baa tahay oo waddanka dhalasho kuma lihid aad leedihiin ajnabinimadeyda aan ogolaadee bal xuquuqda waddankan lagu joogo ee dadka aan qabiilkan ahayn ay ku joogaan baan idinka baahanahay oon idinka fadhinaa inaad na siisaan ilaan qof wadankii ku dhashay oo joogo cimrigii taagnaa deganaansho ma qaadanaya macquul adduunka meel ka jirtaa ma jirta system deganaansho lagu qaatana ma systemkaasi subxaan allah subxaan allah subxaan allah qof baa waxay soo qorayaa malaa qof aad sayseen baa kula kulmay anaga ciidaan isaynay ma jirto ciidaan isnaqaano dawlad iyo system dawladeed aan ka aqaanana maba jirtaba dawladii hoose qaabka ay la dhaqantay CID diba qaabka ay la dhaqantay gedigood sidaas ay isku waafaqeen muddo 5 days ah baan marna CID da lay diray marna dawladda hoose lay diray marna wasaaradda arrimaha gudaha lay diray liajli fara booliis oo u baahday marka waa system waddanka ka jira waana system ecosystem waana system la hirgeliyay waana system markaan soo akhriyay waddanka ka shaqeeya laakiin in systemkaas aad ka dhigtaan system sharciyada adduunka waafaqsan ayaa horta muhiim ah 3 sano citizen lagu noqdaa 5 years bas citizen lagu noqdaa 27 qof cimrigiisa hargeysa ku qaatay deganaansho qaado ma aragano mana maqla dunyada meel ay kaga taalo aad baan uga xumahay runtii niyad jab weligay aanan ka yani aad baan uga xumahay runtii aad baan uga xumahay subxaan allah